واحد بدل انت اللي مرة صبي تامي هاي ساعة حبات بقول حاول إله نغ وجيه أقل عرس أنا عايز أقول شو بس واه دوس مرة ما كهنا أجلس كسرت أجلس عاد ستوصل بلاوت ولا dadku filisana waxa kala carartay ma soo anay لو صبرنا waxaan soo rab hawra kama afdal مدفع للشيء انا ku dhahay xafid buurga ilaaha ka badbaadiyo مدفع اقول لا قرونا اقول علي ما حاجه مجاريه تيدلني فرح ما صوت قرباش اسكو دعيسه hadda waa ma dhacayaan hoogaa waa la isku nasanaa malena karto qof kale ka carar xiro meeshan ku xiro akeer Abdullah Karla wali Abdullah Karla wadi sidaas ogtihiin taariikh 24 bishii labaad hadda la soo dhaafay waxaan la kulannay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta annagoo arintii nabadgelyada dibkii macallimiinta soo gaaray inta ka hadlayna
ayaan u tagnay waxaan isku afgarannay dadkii gobolka iyo arrin walba oo daawo ku imaaday in aan dabagalno annagoo tii daba raacayna waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynihii Soomaaliya annagoo kala daahayna maadaama aan xuduud wada leenahay amni darrana aad dhulka ka jira sideen isu kaashan karnaa oo ammaan ku siin karnaa colna nagama dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya colka ma dhaxeeyo maalin kasta diyaarada ma aragtay inta ka tagaan oo xagga ka imaadaan intii aan u tagnay waxaana kala soo kulannay shay muhiim ah oo aaminsannahay haddii annaga oo dhan aan gacmaha iskugu geyna in labadii waddanba ay ku badbaadayaan marka intaasaan kala soo kulannay waxaan kale oo la sheegayo oo inta ka dhuntaynay intay ka baxeen leeyahay waxba kama jiraan waana u warrami doonnaa dadweynaha annaga ooba doonayna inaan Gaarisa imaanno taariikh laxan inta ka baxayna oon Wajeer tagna oon Mandheera tagna oon shacabka dadweynaha la hadalno intaa waa maasha horta awalan waxaan rabaa inaan idin sheego sida aad baraha bulshada ku arkayseen xildhibaanada lama xirin xabisna lama geynin arrinta aan u tagnay Soomaaliya waa arrin madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka barqabo waay 2 usbuuc ka hore waan la fariisanay dhibaatada ka jirto gobolka inaan xal u raadino meel allaale iyo meeshayna la gashabo Soomaaliya waa dawlad daris aan nahay waa dawlad aan daris wadaagnahay wax ol nagama dhaxeeyo wixii dan oo naga gasho waan u aadaynaa taa waxaan rabaa inaad la socotaan waxaa kaloo jirta xuduud baan la leenahay annaga Soomaaliya xuduudda iyada nabadeeda iyo arrimaheeda wanaaga waxa laga gaari karaa labada wadan Kenya iyo Soomaaliya oo shaqeeyaan arinta marka aan u tagna anaga waa arin aan aaminsanahay in ay xal keeni karto ama xal aan ka gaari karno dhibaatada hadda naga haysato gobolka khaasatan arrimahan maxay ahayd argagixisada dhibaatada hal ay nagu keeneen macallimiinta oo carareen waxa oo dhan waa wax aan madaxweyne Farmaajo kala soo daahnay haddana 3 usbuuc ka bacdi gobolka anaga markaan ku wareegno waxaan ku laaban doonaa madaxweyne Uhuru Kenyatta inaan haddana arrimihi xagga aan kala soo kulanay iyo wixii tilaabo aan qaadnay aan la wadaagno marka waxaad ogaataan xildhibaan la xiray ma jirto wadanka xorriyad waaye annaga intaan ogsonahay wax Soomaaliya naga reebi kara inaan aadno maysan jirin mar hore la aadi jiray haddana waan aadnay hadda ka dambana waan aadi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo marka safarkeena oo Soomaaliya ku aadayna kii u dambeeyay ma noqon doono marka waxaad ogaataan in howlaha aan ku jirno ay yihiin arrimaha gobolka maslaxadiisa ku jiraan marka waxyaalaha propagandada oo social media iyo baraha bulshada lagu qorayo oo ummadda lagu kicinayo oo wadanka laga kicinayo xasaasi wax macna ay ku fadhiyaan malahan aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum walaalayaal horta waxaan rabaa inaan ka hadlo meesha waxa isku kan keenay sida la sheegay anagoo 12 xildhibaan ah oo ka kala socda Gaaris Wajeer iyo Mandheera yaan socdaal gaaban ku tagnay magaalada Muqdisho waxaana u tagnay arrimaha ka jiraan amni darrada ka jirto gobolkeena ama North Eastern Region ama Gaaris Wajeer Mandheera wad ogtiin maanta 3 macallin oo deegaanka u dhalmay ka soo carreen iskuulada way xiran yihiin dhibaatooyin fara badan baan soo gaadhay annaga markaan la kulmay madaxweynaha Kenya wuxuu nagu yiri waxaan rabaa adinkoo mas'uuliyiinta inaad dadkiina nala soo hadashaan wax alla wixii amniga lagu soo karna aad ka kamil kartaan annaga markaan aan tashanay waxaan ogaanay shabaab saldhigyada meesha nagu soo diray Soomaaliya tahay dawladda Soomaaliyeedna waxaan maadaama isku dadna aan isku laqadna aan nahay annagoo Kenyaan ah waxaan u doonay tala iyo wax isweydiin iyo isweydaarsi runtii shirka aan la qabanay meesha aan tagnay hal mas'uul kaliya la kulnay waxaan la kulnay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii la yiri dadkaan la kulnay waxba kama jiraan haddii la yiri lacag baa la soo siiyay waxba kama jiraan annaga intaasan u tagnay madaxweynahana qaabilaad fiican baan ka helnay runtiina waan isfahanay hadalka muhiimadiisana waan sheegay amniga Kenya iyo North Eastern haddii la rabo in la sugo waa in dawladda Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay toos wada shaqeeyaan arinta ayada waa arin muqaddis ah mana dhici karto in arinta marnaba laga waco fariinta uu madaxweynaha soo farin waxaan jeclahay anagana markasta aan diyaar u nahay inaan la shaqeeyno dawladda Kenya heer federaal iyo dawladdiisa inay wada shaqeeyaan waan ognahay Soomaaliya waxa ka jira goboleysi laakiin annaga waxaan aaminsanahay
gobol iyo waddan sideenoo kale kama wada hadli karaan arrimaha amniga waxaa wada hadli karaan madaxweynaha soomaaliyeed iyo dowladdiisa iyo dowladda kenya oo madaxweynaha uhuru kenyatta uu hogaaminayo arrinta annaga aan ku korsan waa arrinta ayada intaasaan socdaalkan u ahaa haddii la yidhi waa nala qabtay nalama qabanin laakiin warka ku jira saxaafadda oo la sheegay oo kaloo waxa keenay in meeshan waxyaalo nala weydiiyo waxaa la yidhi nimankaas waxay la kulmeen sirdoonka soomaaliya lacag baa la soo siiyey waxyaalahaas oo kale annaga run baan ii sheegaynaa qof kaloon la kulmayna ma laha wax lacagoona la soo siiyeyna ma laha waxaana omaana kicin waxaan u kacno inaan wanaag iyo maaragtay amniga si lagu soo inaan u kacno aad baa u mahadsantihin wax badal rin انت اللي ما راح اصبي تامي هاي ساعتها حبات بقول حاول اله انا وجهي عقل عرس انا عاوز كل شيء بس واه فردوس مره ما قحنا اجلس ساعتها اجلس عاد ستوصل بلا وتولى dadku filisana war hay'ad kala carartay mas'uulane
dhuusabana waxaan soo reeb hawra kama مدفع اللي شيء أنا وكلها عميد بورقة إلهها كم دبادي مدفع وكلها قروينا وكلها علي ما حاجة مجارية تيدلني فرح ما صوت hadda waa ma dhacayaan hoogaa waa la isku nasanaa u malayna karto qof kale aga carar حلو ايش عم كحل عاكر عبد الله كارلا ولا عبد الله كارلا ولا sidaas ogtihiin taariikh 24 bishii labaad hadda la soo dhaafay waxaan la kulannay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta annagoo arrintii nabadgelyada dhibkii macallimiinta soo gaaray inta ka hadlayna ayaan u tagnay waxaan isku afgarannay dadkii gobolka iyo arrin walba oo daawo ku imaaday in aan daba galno annagoo tii daba raacayna waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynihii Soomaaliya annagoo kala daahayna maadaama aan xuduud wada leenahay amni darrana aad dhulka ka jira sideen isu kaashan karnaa oo ammaan ku siin karnaa colna nagama dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya colka ma dhaxeeyo maalin kasta diyaarada ma aragtay inta ka tagaan oo xagga ka imaadaan intii aan u tagnay waxaana kala soo kulannay shay muhiim ah oo aaminsannahay haddii annaga oo dhan aan gacmaha iskugu geyna in labadii waddanba ay ku badbaadayaan marka intaasaan kala soo kulannay waxaan kale oo la sheegayo oo inta ka dhuntaynay inta ka baxeen leeyahay waxba kama jiraan waana u warrami doonaa dadweynaha annaga oo doonayna inaan gaaraysa imaana taariikh laxan inta ka baxayna oon wajeer tagna oon mandheera tagna oon shacabka dadweynaha la hadalno inta waa maasha horta awalan waxaan rabaa inaan idin sheego sida aad baraha bulshada ku arkayseen xildhibaanada lama xirin xabisna lama geynin arrinta aan u tagnay Soomaaliya waa arrin madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka barqabo waay 2 usbuuc ka hore waan la fariisanay dhibaatada ka jirto gobolka inaan xal u raadino meel alaala iyo meeshayna la gasho Soomaaliya waa dawlad daris aan nahay waa dawlad aan daris wadaagnahay wax col nagama dhaxeeyo wixii dan oo naga gasho waan u aadaynaa taa waxaan rabaa inaad la socotaan waxa kale oo jirta xuduud baan la leenahay anaga Soomaaliya xuduudda iyada ee nabadeeda iyo arrimaheeda wanaaga waxa laga gaari karaa labada wadan Kenya iyo Soomaaliya oo shaqeeyaan arinta marka aan u tagna anaga waa arrin aan aaminsanahay in ay xal keeni karto ama xal aan ka gaari karno dhibaatada hadda naga haysato gobolka khaasatan arrimahan maxay ahayd argagixisada dhibaatada hal ay nagu keeneen macallimiinta oo carareen waxa oo dhan waa wax aan madaxweyne farmaajo kala soo daahnay haddana 3 usbuuc ka bacdi gobolka anaga markaan ku wareegno waxaan ku laaban doonaa madaxweyne Uhuru Kenyatta inaan haddana arrimihii xagga aan kala soo kulanay iyo wixii tilaabo aan qaadnay aan la wadaagno marka waxaad ogaataan xildhibaan la xiray ma jirto wadanka xorriyad waaye annaga intaan ogsonahay wax Soomaaliya naga reebi kara inaan aadnay maysan jirin mar hore la aadi jiray haddana waan aadnay hadda ka dambana waan aadi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo marka safarkeena oo Soomaaliya ku aadayna kii u dambeeyay ma noqon doono marka waxaad ogaataan in howlaha aan ku jirno ay yihiin arrimaha gobolka maslaxadiisa ku jiraan
marka waxyaalaha propagandada oo social media iyo baraha bulshada lagu qorayo oo ummadda lagu kicinayo oo waddanka laga kicinayo xasaasi wax macno ay ku fadhiyaan ma lahan aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum walaalayaal horta waxaan rabaa inaan ka hadlo meesha waxa isku kan keenay sidii la sheegay annagoo 11 xildhibaane oo ka kala socda Gaaris Wajeer iyo Mandera yaan socdaal gaaban ku tagnay magaalada Muqdisho waxaana u tagnay arrimaha ka jiraan amni darrada ka jirto gobolkeena ama North Eastern Region ama Gaaris Wajeer Mandera wad ogtihiin maanta 3,000 macallin oo deegaanka u dhalan ka soo carreen iskuulada way xiran yihiin dhibaatooyin fara badan baan soo gaadhay annaga markaan la kulmay madaxweynaha Kenya wuxuu nagu yiri waxaan rabaa adinkoo mas'uuliyiinta inaad dadkiina nala soo hadashaan wax alla wixii amniga lagu soo karna aad ka meel kadaan annaga markaan aan tashanay waxaan ogaanay shabaab saldhigyada meesha nagu soo diray Soomaaliya tahay dawladda Soomaaliyeedna waxaan maadaama isku dadna aan isku luqadna aan nahay annagoo Kenyaan waxaan u doonay tala iyo wax isweydiin iyo isweydaarsi runtii shirka aan la qabanay meesha aan tagnay hal mas'uul kaliya la kulnay waxaan la kulnay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii la yiri dadka aan la kulnay waxba kama jiraan haddii la yiri lacag baa la soo siiyay waxba kama jiraan annaga intaasan u tagnay madaxweynahana qaabilaad fiican baan ka helnay runtiina waan isfahanay hadalka muhiimadiisana aan sheegay amniga Kenya iyo North Eastern haddii la rabo in la sugo waa in dawladda Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay toos wada shaqeeyaan arinta ayada waa arin muqaddis ah mana dhici karto in arinta marnaba laga waco fariinta madaxweynaha soo farin waxa weey waxaan jecelahay anagana markasta aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dawladda Kenya heer federaal iyo dawladdiisa inay wada shaqeeyaan waan ognahay Soomaaliya waxa ka jira goboleysi laakiin annaga waxaan aaminsanahay gobol iyo wadan sidoo kale kama wada hadli karaan arrimaha amniga waxa wada hadli karaan madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dawladdiisa iyo dawladda Kenya oo madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu hogaaminayo arinta annaga aan ku qorsan waa arinta ayada intaasan socdaalkan u ahaa haddii la yiri waana la qabtay nalama qabanin laakiin warka ku jira saxaafadda oo la sheegay oo kale waxa keenay in meeshan waxyaalo la weydiyo waxa la yiri nimankaas waxay la kulmeen sirdoonka Soomaaliya lacag baa la soo siiyay waxyaalahaas oo kale annaga run baan sheegnaa qof kale oo la kulmeen ma laha wax lacagona la soo siiyay ma laha waxaan omaana kicin waxaan u kacno inaan wanaag iyo maartay amniga si loo soo inaan u kacno aad baa mahadsantiin Stop!
انت اللي مرة صبي تامي هاي ساعتها حبات بقول حاول إله أنا وجهي أقل عرس أنا عايز كل شيء بس واه دوس مرة ما قحنا أجلس كسعتها أجلس عاد ستوصل بلاوت ولا dadku filisana waxay kala carartay ma soo لو صبرنا نروح نصرف هورا يلا مدفع للشيء انا وكلها عمود بورقه الى كبد باديه ها مدفع وكلها قرونا وكلها علي ها ما حاجه مجاريه تيدلني فرح ما صوت قرباش اسكو دحيس hadda waa ma dhacayaan hoogaa waa la isku nasanaa umalana karto qof kale aga carar حلو ماشي نكمل عاكر عبد الله كارلا ولا عبد الله كارلا ولا sidaas ogtihiin taariikh 24 bishii labaad hadda la soo dhaafay waxaan la kulannay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta annagoo arintii nabadgelyada dibkii macallimiinta soo gaaray inta ka hadlayna ayaan u tagnay waxaan isku afgarannay dadkii gobolka iyo arrin walba oo daawo ku imaaday in aan dabagalno annagoo tii daba raacayna waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynihii Soomaaliya annagoo kala daahayna maadaama aan xuduud wada leenahay amni darrana aad dhulka ka jira sideen isu kaashan karnaa oo ammaan ku siin karnaa colna nagama dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya colka ma dhaxeeyo maalin kasta diyaarada ma aragtay inta ka tagaan oo xagga ka imaadaan intii aan u tagnay waxaana kala soo kulannay shay muhiim ah oo aaminsannahay haddii annaga oo dhan aan gacmaha iskugu geyna in labadii wadanba ay ku badbaadayaan
marka intaasaan kala soo kulannay waxaan kale oo la sheegayo oo inta ka dhuntaynay intay ka baxeen leeyahay waxba kama jiraan waana u warrami doonnaa dadweynaha annaga ooba doonayna inaan Gaarisa imaanno taariikh laxan inta ka baxayna oon Wajeer tagna oon Mandheera tagna oon shacabka dadweynaha la hadalno intaa waa maasha horta awalan waxaan rabaa inaan idin sheego sida aad baraha bulshada ku arkayseen xildhibaanada lama xirin xabisna lama geynin arrinta aan u tagnay Soomaaliya waa arrin madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka barqabo waay 2 usbuuc ka hore waan la fariisanay dhibaatada ka jirto gobolka inaan xal u raadino meel alaala iyo meesheena la gasho Soomaaliya waa dawlad daris aan nahay waa dawlad aan daris wadaagnahay wax ol naga ma dhaxeeyo wixii dan oo naga gasho waan u aadaynaa taa waxaan rabaa inaad la socotaan waxa kale oo jirta xuduud baan la leenahay anaga Soomaaliya xuduudda iyada ee nabadeeda iyo arrimaheeda wanaaga waxa laga gaari karaa labada wadan Kenya iyo Soomaaliya oo shaqeeyaan arinta marka aan u tagna anaga waa arin aan aaminsanahay in ay xal keeni karto ama xal aan ka gaari karno dhibaatada hadda naga haysato gobolka khaasatan arrimahan maxay ahayd argagixisada dhibaatada hal ay nagu keeneen macallimiinta oo carareen waxa oo dhan waa wax aan madaxweyne farmaajo kala soo daahnay haddana 3